بسم الله الرحمن الرحيم laba sano ka hor markii gumaadku qasa ka bilowday waxa aan bilaabay buug ku saabsan dadka Soomaaliya har iyo habeenkii ma seexan jirin maalintii wax yar ba seexan jiray waxbaan qori jiray waxbaan baari jiray waxbaan qori jiray waxbaan baari jiray waxbaan baari jiray waxbaan baari jiray waan qori jiray waan qori jiray waan qori jiray marka dadka Soomaaliya baaritaankan ku waday muu bilaaban laba sano ka hor haddaan imika dib u eego wax bilowday 11 jir markaan ahaa waayo waxaan eegayay dhibaatada dadka haysta wadamada Soomaaliya maxaa keenay su'aal yar basiida 7 jirkii ka bilaabatay 11 jirkii xoog sii yeelatay ilaa dhowr ilaa 10 jirkaygii u kaliftay inaan jaamacada tago oo soo barto si aan u fahmo waxaan haystay inaan dad jaamacad tago inaan wax fahmay buugaas waxaan kaga hadlay dadka Soomaaliya ah oo ay imika 20 sano waxaan lahaa war dadka Soomaaliya haysta dadka madaxda u yaqaaniin madax maaha waayo madaxdu waxay leedahay calaamad lagu garto madaxdu ma inaan suur soo xidho oo kamarta hor istaago inaan madaxweynahan hay ama wasiir baan maaha taas madaxdu xikmad bay u baahan tahay waxay u baahan tahay ficil waxay u baahan tahay karti intiiba ma laha maanta adduunka gaal iyo muslimba qof madaxii uu yiriyahay qof madaxa waa 5 ama 7 haday ugu bataan waa 7 adduunka oo dhan ma laha xigmad tusaale kaliya qofka madaxdii wuxuu garanaya waxa soo socda waa inuu ka fikiro waxa soo socda 50 sano ka bacdi 100 sano ka bacdi ficilku sameeynaya maanta maxay ku keenaysaa dhibaato 50 sano ka bacdi jiilka soo kacay waa mid kaliya dadka haysta waxaan oran jiray waa riyo sida dadka laga cabanayo wadamada Soomaaliya haysta de sida roobka cirkana kamay soo diin sida doogana dhulka kamay soo bixin umaday ka soo baxeen halays baan u leeyahay buugaagtaydan ku qora malcamaday ka soo baxeen malcamadaha ka hor waalid baa dhalay hooyo aaba Soomaaliya dhalay hooyo aaba Soomaaliya dhalay dugsi bay tageen caadiya dawladaha ayaa wax soo bartay bulshaday xaafaday ka soo baxeen magaalooyin bay ka yimaadeen wadamay ka yimaadeen jaamacaday ka soo baxeen qaarkood waxa soo dhamaan dib u eegayaan marka wax baarayo waxa soo dhamaan eegaya halkay ka dhacday halkay salaad ka xirmi lahayd wayna soo marka waxaan ogaaday in bulshadu xun tahay bulshada Soomaaliya ayaa diintii ka leexatay wadadii Soomaaliya ka leexatay marka waxaan sheegay calaamadaha ugu badan oo wadaad Mareexana oo dhalinyaro ah oo wadaadada la yiraahdo salaafiyiinta loo yaqaan ayaa wixii weydiinaya aniga oo mudaharaadka ku jiray qofka kaliya madow ka ah inta kale ugu leeyay baasaboorka ma laga qaadaya haddii mudaharaad ka qayb gasho yani uu baqanaya waa wadaad quraanka uu yaqaan waa salaafi xadiisyada uu yaqaan waan sanu malaynayay laakiin muu fahmin waxaan ku uri inaad ka fikirta maaha baasaboorka laga qaaday hadii baasaboorka laga qaaday muxuu naf leeyahay wadankaaga baad ku noqonaysaa ma dhimanaysid markii hore arsaaqad baa lahay ilaahay aamin baan ku uri mudaharaadkana waa qasab maaha wax laga qaadaya maaha hadii xitaa laga qaadayo dee arsaaqada ilaahay baa ku qoray ilaahay aamin marka hore baqdin weeye dadka Soomaaliya baqdin baa haysta taasi waa koow isagoo kaliya ma badan baan ku arkay tusaale kaliya aan ku soo qabsanaya talabaad caajis baan ku arkay wadaadada ka yar ka weyn gabadha tayarta weyn ka ku dhashay Yurub ka ku yimi isagoo weyn Yurub ka isagoo dhalinyaro yimi waxbay ka wada sameeyeen waa caajislow ka saddexaadna waxa weeye kalsoonidii baa ka maqan kalsooni malaha sawirka ay naftooda ka haystaan ayaa dhulka yaala sawirka ay naftooda uma haystaan inay iyagu wax qaban karaan in qof cadaan wax qaban karo hadii qof cadaan hoos tagaan ay noolaanayaan bay haystaan iyagu inay wax qaban karaan ma haystaan waayo qofka marka taariikhdiisa laga kaxeeyo uu ogaado inuu muslimku waxaan jiray marka laga qariyo taa wuxuu haystaa in dadka kaloon ay imika wax yaqaan ay wax noqonayaan marka waxaan ku uri baqdin iyo caajis iyo kalsooni darro saddexdaas haysta dadka Soomaaliya buugaygan ku qoray sida dadka ay Soomaaliya ay u khiyaameeyeen dadka Falastiiniyiinta diintii Ilaahayna ay uga soo bixiyay Ilaahay wuxuu yiri cadaaladdan jecelahay war cadaaladda u istaag haddii xitaa naftooda ka soo horjeedo ehelkaaga hadday faqriyo hodan bay yihiin
haddii laakiin aad ka jeedsato oo adduun jacaylkiisu ku dhaafiyo waxaad ogaataa inaan ku arkayo aayadaasaa haysaba wadaad iyo roolaba bal u fiirso waadadooda muxaadarada waxay noqotay meel lagu kulmo sheekh mustafa u fiirso wuu iska qoslaya sheekh cabdirashiid cali suufi u fiirso xasan u fiirso waadada kale u fiirso dir u fiirso way iska wada qoslaya in adduunka dhibaato ku jirta maba ogaba sanadkii hore kii kasii horeeyay waxaan idhi war gaalada iyo yuhuuddu dagaalkan iyaga waxay ka tahay diin ahaan bay ka tahay diin ahaan ayay ka tahay munaafiqiintii waad ogtay halkay raacsan yihiin carabtii iyo muslimiintii waatii wigii hore halkii lagu shireeyey masar lagu shireeyey dadka qaar baa la yaaba ma la yaabay anigu alxamdulilah ilaa iyo markaan ahaa 11 jir waan ogaa in carabta iyo muslimiintu aanay faa'iido lahayn waayo waxaa la eegaa ficilka la eegaa taariikhda la eegaa taariikhda barta buu ilaahay yidhi si ay wax u fahantaan wixii hore tegay marka dadka sunnaha adduunkiina waa lagu bahdilay sida loo bahdilayo kaalay arag loo bahdilayo aakhirana ilaahay wuxuu ugu ballan qaaday inay nasaarada iyo yuhuudda ka hooseynayaan cadaabta jahannama aniga markhaati baan ahay jiilka soo socda 50 sano ka bacdi 100 sano ka bacdi buugan iminkaan qoraya dadka sunnihiisa ay u fadhiyeen si ay wax u daawanayeen ee aanay waxba ka qaban aanay xitaa garan waraaq kaga soo horjeedaan gumaadka iyo dhibaatada lagu hayo xitaa haddii aad halka mudaharaad ka qayb gasho qofkaas karaankiisa ilaahay aakhira ma weydiinayo qof kasta karaan buu leeyahay qof wax buu qori karaa qof wuu hadli karaa qof mudaharaad buu qayb geli karaa qof mudaharaadada isku soo dabridi karaa qof masaajidadu oran karaa waa xasuusiyad qof wuxuu oran karaa waa shirkadaha waxba ka iibsanina qof kasta wax buu qaban karaa haddana qof kasta wuxuu qoonay waxbaan ahay waxa lagu jeediyay dadkeenii dumarkiina inay dabadooda ku tusaan TikTok-ka raggiina inuu suur soo xidho wax iska ka dhigo isagoo aanad garanay wax Allah ali wuxuu ku hadlayo cilmi uma laha wuxuu ku hadlayo waayo waqti muu gelinin marka waxaynu ku jirnaa waqti cajiiba waqti munaafiqiintii ay bateen dadkii muuminiinta ahna ay yar yihiin innaga waxa laynooga baahan yahay dadkeena kartida leh dadkeena wax fahmaya dadkeena ilaahay diintiisa ku xiran inaynu ka hadalno aan ka hadalno wax ka qorno aan diidno